maanta waxa weeye waa maalin madow ee Soomaaliya u tahay saadey maalin muruga weey nimanka halka fadhiya guurta la baxay ma kuwa gunta la baxay waa gunbeen ugu yeernay maanta Soomaaliya way dilay waa tashi shirbeelad baa loo yeeray shirbeeladkii Soomaaliya lagu aasaasay ee booramo kala sameeyay meelaha la isku yeeray maradaan asxaabtana ay fadhidoobay oo qabaayil qaarkood noqdeen waxa loo baahay markaan dalka la badbaadiyo maanta doorasho iyo nin madaxweyne oo qotay ma taagna badbaado qaran baa loo baahay dowladda naga saari karta maaha waqtigan hadda aynu ku jirno iyo cadawga isugu aloosan yahay iyo mabalaashiishka lagu hayay Soomaaliya burburiyo dowladda naga saaraysa maaha sida awooda fidmadaas haddaan labada xusbinahay iyo taageerayaasha iyo bulshada dadka reer Soomaaliland ee xitaa aan asxaabta midna ku rajis galeen waxay u arkaan xaaraan maga xaaraan bay naga tidalkeega wax ka soconaya labada sanado wax ka soconaya beertiisa ka socoto laakiin Soomaaliland sharcigaas ka socon maayo waa xaaraan inta waxa noo raaca 13 Noofambar haddii Ilaahayna gaarsiiyo waa waqtigii historiga ee madaxweyne ku-xigeenkiisa laga sheegay inuu waqti ka dhacayo doorashadu dhacaysay 13 Noofambar wixii ka dambeeya haddaan nahay labada xusbi ee macaaridka oo ma aqoonsanin inuu madaxweyne dalka ka yahay xukuumadda wasiir ma aqoonsanin adduunka waxaan uga baaqinaa inay wax alaay wixii kontaadka ay leeyihiin 13 bisha wixii ka dambe haddii Ilaahay aqli u soo celin inaanay la macaamilin annaguna insha Allah taala talaabooyinka qaadi doono inay dawladdiisa aanay tusno inaanay ogoleen gadaal baan ka soo sheegi doonaa action soo qaadi doono waxay noogu muuqatay in shacbigu meesha ku midaysnaa xisaabta ku midaysnaa caalamka ku midaysnaa oo mowqifka xisbigu ka noqdo waa kee ka markaa waa kowda Juun doorashada dhacdo shalay ururada Soomaaliland waxa ka dhacay foolxumadii ugu weyneyd ayna soo martaa intii aynu nidaamka axsaabta badan iyo dimuqraadiyadda qaadanay shalay waxa gudmadow lagu hubsaday oo gobol baas u dhacay nidaamkii dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka ku dhisnaa waxa la xabaalay kalsoonidii shacabka iyo doonistii dadweynaha sidaas darteed xisbiga wadani go'aanka wuxuu arkaa mid xaaraan ah oo aanu aqbalayn haddii uu Muuse Biixi doorashadii qaban waayay haddii uu diiday ergooyinkii kala duwanaa ee Sheekh iyo Shariif balaha haddii uu diiday xal ku yimaado wada tashi wada hadal iyo heshiis daneeshayaasha doorashooyinka haddii uu dadkii shicibka ahaa een hubaysnayn ee sameynayay barnaamijyada silmiga ah rasaas u adeegsaday oo uu kibir ku laayay haddii uu diiday taladii ay soo jeediyeen ganacsatada iyo waayeelka dalku haddii uu soo ooday dariiq kasta oo ay Soomaaliland ku xalin lahayd cakirnaanta siyaasadeed xisbiga wadani marna ma aqbali doono kororsiimo xaaraan ah ee Muuse Biixi dariiqa dheer ugu soo marmarsooday xisbiga wadani muddaxileedka sharciga ee madaxweynaha Soomaaliland waxa uu aqoonsan yahay inuu ku eg yahay 13 Noofambar wixii muddada ka dambeeya madaxweynaha iyo xukuumaddiisa uma aqoonsan doono kuwa sharciyad ku fadhiya hal xaaraan hinirag xalaala ma dhasho sidaa darteed xisbiga wadani wuxuu qaadacayaa isla markaana qayru sharci u arkaa muddo kordhinta loo sameeyay